waryaadahan halow waa qumayo xor xildiid waa anigii soo laabtay soo maanta waxaan isii video yaroo gaban bal usoo fadhiiso because waxyaalo waxaan ku idhahaayo magacan Aasiya abaa maalmahan maskaxdeeda ka dhex guuxaya beri baan si u fasiray and then berigaan muuse ka hadlaya muuse ama dee wax la moosayo soo maaha basically daadka ama biyo markay kusoo biyo markay daad markuu kugu soo socdo dee biyo markay kugu soo fatahaan ayaa la iska moosaa soo maaha and then sheekadii wanigii ka hadlaya Pisces oo biyaha ku saabsan oo waa agekan laga baxayo oo wax Aquarius baa la gelayaa agekii cilmiga la gelayaa adduunkuna waa tan dee badda iyo biyaha iyo oceanka maaragtay badda maritime law bay yidhaahaan laysku dagaalsan yahay oo waxaad arkaysaa badda waxa badda cas areamka ka socda ilaan suuqyadu waxay ku xidhan yihiin badda laysku haystaaye eventually da imika waa arkaysaa waxaan diyaaradahan xitaa ku saabsan arrimihii duulitaanka very dangerous ay noqotay beri baaban idhi hadhow toonleerkaa laysku haysan doonaa wallahi it's funny soomaaliyana waxaa la yidhaha bad cirkeedii bay soo ceshatay iminkana cirkii dee waa la qaatay haddana soo maaha baddii baa iminkana loo soo socdaa oo beri baaban oran jiray waa daad baa idiin soo socda iska moosa somaliland dad oo u fiirsatid labadii nina dadka xiijiyey aga somaliland muuse somuhayn muuse iyo nuux taani baa xiijiyey markaasaan soo xasuustay sheekooyinkii ku saabsanaa muuse iyo dee nuux noa iyo moses sheekooyinkoodii oo de xoole xitaa albaqra bay ku saabsanaayeen ma fahanteen so magaca Aasiya dhowr jeer bay igu soo noqonayay anna waxaaban rabay ba wallaahi bilaahi gabadh haddaan dhalo Aasiya u bixin lahaaya soo magacii baan dib ugu laabtay lakasaad beri baan si u macneeyay Aasiya haddaad u fiirsatid de wax la aasayo weeye or it makes you think waxaa la dhahaa intuuna nebigu imanin sheekada ku saabsan quraanka iyo carabtii hore gabdhahooda way aasi jireen oo wuxuu yidhi gabdhahan yaan la aasin marka magaca Aasiya saasaan ugu fiirsan jiray kasaan yidhi wallaahi bilaahi waa society gabdhaha de waxay kusoo kordhinayaan bulshada aasaya cilmigooda aragtidooda waxoo dhan garab dhan xaaf dhan baa la aasaya markaasaan yidhi abujaahiliintii laga hadlayay ilan agekii ignorancekani ku jirnaa ilan iyagay ahaayeen ma fahanteen wadaad si u eegtid af carabigan idinka idin waalo dad moodeen waa af baa laga hadlayaa language waxa weeye qof waa qof maaragtay dee carab aan saxnayn carab qaloocan oo hypocritical isticmaalaya split tongue weeye oo haddaad u fiirsid dadka qaarkood waxay dhahaan bilcakis dee waa af carabigaa laga hadlaya bilcakis nina si u yidhi nina si u qaatay sheekooyinka marka lasoo tabinayo so magacii baan haddana imika si kale aan u arkay maanta and I was like okay interesting nephew-gaygii baaman ayaaban weydiiyan ku yidhi heblaaye mataqaanaa Aasiya bintal muzahim mataqaanaa maya buu igu yidhi and then I said mid kale haddana weydiiyey wiil kaloo saaxiibnahay baan ku yidhi waryaha caasinimadu ii micnee markaasuu gu yidhi dee badanka sidaynu u naqaano wuxuu gu yidhi badanka dee qofka waalidkiisa caasi ku noqdaa loogu yeedhaa markaasaan yidhi ma wax xunbaa so marka ma wax xunbaa ila idinka waa laydinka dhaadhigay waalid caasi ila way ka socotay baraha bulshada oo iminka waxaasaaba laga hadlaabe ma saxba waalidkiin caasim lagu noqdo because haddaad islamically qur-aanka u fiirsatid suurad baynu ku hadli doonaaye dee when you're correct when you're on the right qof saxan markaad tahay ood xaq ku taagan tahay waad ku noqon karaysaa caasi magaca Aasiya halkaasuu ka yimid caasi halkaasuu ka yimid ma fahanteen marka dib baynu qur-aanka u akhriyaynaa ma fahanteen iqra obviously uskagoo gadh waaweyn baad dhegeysanaysiina so magacii baan korbasi u rorogay okay dan caasinimadii ana waxbaan isku geynaya markaasaan yidhi qur-aanka haddaad u fiirsatid magacan waxaa laynagu yidhi caasi waa disobedience ama
one who defies defies nacam marka dadkii oo dhan iminka waxaasaa lagu dhejiyay xitaa haddaad waalid xun ku dhaleen haddaad ehel waalan kasoo jeedid haddaad dad munaafiqiina kasoo jeedid waxaa lagu leeyahay iska aqbal or you're not allowed to define obedient noqo nin xumo maraana hadduu ku qabo aamus baa lagu leeyahay so I said dadkani way waala yihiin they're setting trap especially gabdhaha wayba aasayaanbe and so maxaa loo yaqaanaa magaceeda Asiya bint al-Muzahim muzahim markaasaa layidhi ereygan bal aan guntiisa soo baadho markaasaa layidhi ereygan musahim waxa weeye one who brings honor one who elevates saasaa loogu micneeyey obviously waaniga yidhi waxa weeye gabadhii biyaha ka heshay muuse biyaha ma fahanteen sheekada marka magacan musahim baan rorogay okay mu oo wax lagu darayo marka meel inaga dhig sahim waa maxay sahim baan rorogay sahim waxa weeye saxan waxa weeye marka masaxan bay noqonaysaa